kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu door karona waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulanka xildhibaanada golaha shacabka iyo baqdin xoogan oo laga muujinayo mid kamid ah garbaha uu ku duulo madaxweyne Farmaajo oo ugu baaqay madaxweynuhu inuu iscasilo dawladda Mareykanka oo baaritaano shakhsi ah ku bilowday madaxweyne Farmaajo gobolka Banaadir oo u yeeray mas'uuliyiin ka tirsanaa oo dhawaan ku biiray xubnaha mucaaradka intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu door karona warkayaga haatan ku soo dhawaada intii hore ka faahfaahsan hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhig channelka sidoo kale like sar asxaabtaadana u share garay mahadsanid warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulanka xildhibaanada golaha shacabka ay yeelanayaan maanta iyadoo baqdin xoogan laga muujinayo kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maanta oo sabti ay yeelanayaan kulan xasaasi ah oo baqdin xoogan laga muujiyay waxaana kulanka xildhibaanada la filayaa in lagu go'aamiyo arrimo muhiim ah oo ku saabsan doorashooyinka dalka ka dhacaya waxaana jira baaqiyo kala duwan oo loo diray xildhibaanada golaha shacabka oo ku aadan in aysan qaadanin go'aan qaldan oo dalka u horseedi kara qalqal siyaasadeed iyo mid amniba dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa goor sii horeysay loo diray fariinta ku aadan inay ka soo qayb galaan kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ah isha aad loogu wada hayo isla markaana cabsi xoogan laga muujinayo kulanka ayaa laga baqdin qabaa inuu wajiyo badan yeesho isla markaana ay ka soo baxaan waxyaabo aan la filayn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulankan xildhibaanada hore uga dalbaday waxaana la filayaa in daqiiqadaha soo aadan uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hortago xildhibaanada madaxweynaha ayaa waxa uu xildhibaanada ku soo celiyay muddo kordhintii loo sameeyay 2 sano ahayd waxaana uu hor keenayaa xildhibaanada golaha shacabka inay meel mariyaan in dalka ay doorasho ka dhacdo taasi oo ku qotonta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay gaareen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha musharaxiinta kamid ah iyo qaar kamid ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ayaa walaac xoogan ka muujiyay kulanka maanta waxaana ay muujiyeen inay baqdin ka qabaan in mar kale xildhibaanada golaha shacabku ay qaadaan go'aan aan la filayn kaas oo dalka u horseedi kara qalaasa siyaasadeed iyo mid amni hore xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si lama filaan muddo kordhin ugu dhawaaqay taasi oo dalka gelisay dagaalo sokeeyo iyo sidoo kale qalaaso iyo fowdo waxaana jirta in haatan baqdin xoogan laga qabo taasi oo ku aadan in ay xilka ka tuuraan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha kulanka maanta ee xildhibaanada golaha shacabku ay yeelanayaan ayaa waxa uu yahay mid si aad xasaasi u ah isla markaana loo yeeray dhammaan xildhibaanada golaha shacabka qaar ee dibadda ku maqnaa iyo kuwa kale waxaana kulanku uu yahay mid si aad ah looga cabsi qabo in ay dhacdo arrin lama filaan isla markaana waxa si aad ah uga dhursugaya shacabka Soomaaliyeed waxa kulankan ka soo baxa oo ku aadan aayaha dalka iyo doorashada dalka ka dhacaysa xildhibaanada golaha shacabka ayaa la filayaa in wado hor leh ay u jideeyaan dalka taasi oo ku aadan in doorasho ay dalka ka dhacdo waxaana dhici karta in iska hor imaad ku aadan iskhilaafka dhanka siyaasadda ah uu dhaco xildhibaano ka tirsanaa golaha shacabka ayaa horay ugu goodiyay in xilka ka tuuri doonaan madaxweyne Farmaajo haddii uu ka gorgortamo arrimaha ku aadan in uu ka laabto muddo kordhinta loo sameeyay waxa sidoo kale jirta baqdin xoogan oo ay muujinayaan siyaasiyiinta dalka taasi oo ku aadan in mar kale ismariwaa siyaasadeed uu ka dhasho kulanka xildhibaanada golaha shacabka mid kamid ah garbaha uu ku duulo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu madaxweynaha ugu baaqay inuu iscasilo mas'uul ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana haatan safiirka u fadhiya dawladda Soomaaliya dalka Kenya ambassador Maxamed Nuur Tarsan ayaa waxa uu fariin muuqaal oo uu soo duubay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu iscasilo maadaama dalku uu galay dagaalo iyo sidoo kale fowdo aan dhamaadkeeda la ogeyn waxaana uu madaxweynaha kula taliyay in haatan loo baahan yahay in si sharaf ah uu dalka uga baxo isla markaana uu u muujiyo shacabka Soomaaliyeed waxyaabihii waxtarka lahaa ee uu qabtay haatanna uu wareejiyo xilka Tarsan ayaa kamid ahaa mas'uuliyiinta aadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo isagoo soo noqday la taliyaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ahaa saaxiib dhow oo ololihii madaxweyne Farmaajo uu ku yimid isagoo qayb weyn ka ahaa isagoo si weyn ugu ololeyn jiray in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marun uu qabto talada dalka saaxiibkan u dhawaa madaxweyne Farmaajo ayaa mar qura waxa uu ku dhawaaqay tallaabo si aad ah ay dadku ula yaabeen taasi oo ku aadan in xaaladda dalka iyo musiibooyinka jira uu ka hadlay isla markaana uu sheegay in qalalaasaha iyo dagaalada sokeeye oo bilowday ay dhibaato hor la ku tahay dawladnimada waxaana uu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay haatan u furan tahay wadada kaliya oo ah
in uu iscasilo isla markaana uu isaga oo sharaf iyo sidoo kale cisaba mudan uu dalka ka baxo. waxa aniga fikradeed ahaana xaaladda dalka haddii aan haatan ka taagan aan muujiyo waxaa jira dad diidan madaxweynaha dagaalna kula jira kuwaas oo ajaanib la shaqeynaya mushaarna ka qaata dantoodana eegaya waxaana madaxweynaha iyo ummadda Soomaaliyeedba ugu baaqaya in ay qaataan nabadda isla markaana madaxweynaha si gaar ah aan kula talinaya in uu dalka ka tago isaga oo wax badan u qabtay. danjire ambassador Maxamed Nuur Tarsan ayaa waxa ugu baaqay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka uu hortago xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu xilka halkaasi kaga tago isla markaana uu qaato go'aan geesinimo leh. sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in dalka uu doorasho galo doorashada dalka ka dhacaysa uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isaguna uu noqdo musharax mar kale u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale garabkan weyn ee madaxweyne Farmaajo haatan ka baxay ayaa waxa uu sheegay in 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo uu qabtay wax wanaagsan oo wadankan uu dhismo fara badan ku sameeyay dhanka ciidanka iyo dhan walba oo wadooyinka iyo waxyaabo kale oo mudnaa in la qabto. waxaana uu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan uu mudan yahay in markaasi la ciseeyo isla markaana lagu taageero waxyaabihii mudnaa ee uu qabtay. dawladda Mareykanka ayaa waxa ay baaritaan shakhsi ah ku bilowday madaxweyne Farmaajo waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan daaha laga rogay arrimo qarsoodi ah oo u qarsoona kuwaas oo ilaa 3 gaarayay. dawladda Mareykanka ayaa baaritaanka ay ku bilowday waxa ay ku sameynaysaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hanti iyo sidoo kale musuqmaasuq la sheegay inuu horay u geystay. mid kamid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxay dalka Mareykanka waxa uu soo qaatay dhowr arrimood oo ku saabsan baaritaanada ku bilowday madaxweyne Farmaajo waxaana uu sababeeyay in 2019 uu madaxweyne Farmaajo dib isaga celiyay baasaboorkiisa dhalashada dalka Mareykanka. arrintaasi sir qarsoodi ah oo ku saabsan ayuu daaha ka rogay. sidoo kalena waxaa la tilmaamay hay'adaha dakhliga guud ee federaalka Mareykanka in ay baaritaanka bilaabeen isla markaana ay warbixintooda ku cadeeyeen inay soo afjari doonaan baaritaanada ay wadaan iyagoo tilmaamay inay dacwad ku soo oogi doonaan madaxweyne Farmaajo. xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli kama uuna jawaabin eedeymaha loo soo jeediyay iyo sidoo kale baaritaanada lagu tilmaamay in musuqmaasuq madaxweynuhu u geystay isla markaana ku saabsan baaritaanada haatan lagu bilaabay ee dawladda Mareykanku ay bilowday. arrintan ayaana waxa ay haatan soo ifbaxaysaa iyadoo Soomaaliya ay haatan wajahayso qalalaaso ku aadan dhanka doorashada cakiran ee dalka isla markaana maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda dawladdu ay aad u kala fog yihiin isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu waqtiga ka dhamaaday uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mareykanka ayaana hanjabaad horay ugu jeediyay madaxweyne Farmaajo oo ku aadanayd in cunaqabatayn uu ku soo rogayo haddii uusan doorasho qaban oo muddo kororsi uu ku sameeyo. waxaa sidoo kale jirta in dawladda Mareykanku ay qaaday tallaabo ku aadanayd in ay mamnuucday in muwaadiniinta Mareykanku ay tagaan Soomaaliya iyadoo haatan ay ka jiraan qalalaasaha amniga. ugu dambeyntiina maamulka gobolka Banaadir ayaa u yeeray mas'uuliyiin ka tirsanaa kuwaas oo ku biiray xubnaha mucaaradka iyo ciidamadii ka dagaalamayay magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Yaaqshiid iyo sidoo kale mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Warta Nabadda iyo xogayaha degmada Hilwa ayaa waxaa looga yeeray xarunta maamulka gobolka Banaadir iyadoona la sheegay in loo haysto qoraallo ay soo dhigeen baraha internetka ku leeyihiin iyo sidoo kale sawirro iyo qoraallo faallooyin ah oo ay dhiibteen isla markaana ka dhanaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo sidoo kale la tilmaamay in sawirro dhowr ay la galeen madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. gudoomiyaashan gobolka Banaadir ka tirsanaa ayaa haatan eedeymo hor la wajahaya waxaana loo haystaa in ay ku kaceen falal ka hor imaanaya shaqooyinka maamulka gobolka Banaadir. xogta la helayo ayaa tilmaamaysa in maamulku ay gudoomiyaha degmada Daynile u aqoonsadeen hogaamiye dagaal oo ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya haatan jirta isla markaana arrintaasi ay markaasi qayb ku lahaayeen mas'uuliyiinta haatan loo yeerayo. mas'uuliyiintan ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa laga doonayaa in ay jawaab rasmi ah ka bixiyeen falalka ay ku kaceen waxaana loogu hanjabay in xilka qaadis lagu sameyn doono isla markaana eedeymo culus dusha looga rogi doono haddii tallaabada ay qaadeen
ay markaasi noqoto mid ku cadaata waxaa sidoo kale jira xogo hoose oo soo baxay oo ku aadan in gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar iyo sidoo kale Shiilow aysan wali tagin xarunta gobolka Banaadir iyadoo horey looga yeeray talaabadan maamulka gobolka Banaadir uu qaaday ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dagaalo qalalaaso geystay oo ay ka qayb qaateen xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay ka dhaceen magaalada Muqdisho isla markaana ay qalqal galiyeen amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen Warshada TV wanaga inta nabadgelyo